ويدا وحوم به إخواني الصدقة عجائبتي هذا وحكمه هو مركز مقاشيد نفط هذا وحي دم عيسى وحك صدها شيئا بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقيستو وحك بدن با إلهي ugu بدلا $1 هداد بحسو كمانان $1 با إلهي kugu بدلا حقيقة وي وحدليل عائشة رضي الله عنها قبل مسلم كاي بلدغيسو وأم المؤمنين وقفك أثربتو أيضا كلا إنا نغطو أو جنة لقشو ما كمل أيضا صوما oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama chapati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin ba guriga ku soo garaacay gabar khaadimada la joogtay way albaabka uu fur waayo way furtay si waa miskiin si xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin u soo garaacay si tiri waayo si waa miskiin kale si xabadka kale si yaa umul maalin walba waxaad haysato intaad bixiso يهدونه وحد وإذا واحد كو أفرط سيتي أذوب كداية سي حبت كيف قاعدة ويسيس حوجها كذب أيها قف كلا الباك صاقر قراعي بالفيري مسكين كلا هذا مسكين كلا محارسين أو صدحات والله كتاجا جودي بقى الباب كفرتي وحتى نين أضانا أو هو ذا طبق صحن وي والناف أري أو حاطول سارن هلب كيسال الله شيلي باربيكيو أنا ونقعنا سكنا الله صلي oo root dusha ka saaran yahay tira badan markaasuu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadhi ay soo qaaday Aisha intay qasashay waxay tiri un wa khubzun khayru min khubziki wa khubz ka khayr badan khubzkaaga iyo un ilaahi agtiisu keenay ilaahi waa soo diray tabaaraka wa taala fadlka fiir bil ajiba wa Aisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti ay hilib loogu bedelay haddaad dhibaato ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaraan ku haysato Aisha ku day wax haysatay bixi wax ka badan ba Ilaahay ku seen waxyaabaha sadaqadu sameeyay waxa kamida waa mas'alo aan islaayahay wallahi maanta dad badan oo muslimiin ah u baahan daawu bardaakum bisadaqa qofka jiran sadaqa ku daaweeya waliga xadiidka nabiga intaad maqashay sallallahu alayhi wasallam asoo qof ka jiran yahay ma u qasaday inaad ku daaweysid sadaqo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam وحاد على إمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم قصوين كان شيء أنت بدن قف كهرباء وحكى آخر سنة كرا كتاب من عجائب الصدقة وعجيبة أو الصدقة شيء عجيب وغشاء كيني عبد الله يعني إمام أبو عبد الله الحاكم أي جفري وجهه وحكى صباح بابا مركز بتاع اختار بوتلي وحكى سوسمي ده هو اللواء ما كاملة أسوي الدرس آخرين يوجه على عامي أو الشيخ اللي كهيسته ayaa waxa arkay wuxuu soo galay masaajid Abu Uthman as-Sabuni oo darsi ka akhrinay sheekha aqeedada caanka ku ahaa kutubka aqeedada iyo firaq bid'a in la dagaalamo markuu soo galay wuxuu yiri imaam Abu Uthman as-Sabuni wuxuu yiri u duceeya imaam Abu Abdullah al-Hakim in Ilaahay caafiyo dadka waxay in Ilaahay caafiyo asagoo subaxii dambe darsi xadiis sheekhi akhrinay ayaa waraaq hortiisa lagu soo tuuray waraaqdii uu furay waxa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam riyan ku arkay ajiib markaasuu nabigu wuxuu igu yiri waxaad ku tiraahdaa Abu Abdullah al-Hakim waxaad ku dhahdaa yuwasi' al-maa'a lil-muslimiin muslimiinta biyaha sadaqaysto sheekh darsigii buu dhameeyay markuu dhameeyay ayuu kacay gurigiisa darbigiisa wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaal u yeelay biyaa lagu shubay درسكي بقى كعبي والله تدوبري كدب بوجيه وي دمادين وي بابين عجيب وي ما انت قفك مسلم كوحا هيست كانسر وحا هيست حنون وحا هيست ديكر وحا كو هيا حنون كست دايبيتك سكر با كويسه حنون كستا كو هي حنون ما كو هيا حديث كان النبي انت امنتي داو مرضاكم بصدقه بالفيربا صدقه بحصو بخي إلهي أسوأ الداوية بالأركض دونتا وين عادي مرة بدن وين عادي قصوين حديث أبعد دعيه وهذا وقت كان الجوجع وحنا عادي قصة عجيبة لو عنو أو يرير أو ولا الله عيارية أيام مت كم إذا إكتوا إيش وحاك جل قري وحبا كتشوا إيش وين عاميسا وحبا كجرا دخاتيرتي لوجي أو تنوي كبكان إيش ماشي مذوي دختر كسو حلية أنا عجيب ما تهابن كرو وخطر إيشان هذا أنت عبت إيش هو بيله يا عنو
hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaha ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sala allahu alay wasalam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisa sadaqa weyn bay bixisa waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yidhi bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobeynaya inaan qabo markaasuu markuu wiisitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadba furduq ka soo yidhi oo bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sal allahu alay wasalam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sal allahu alay wasalam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadtaa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro deg dega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mid a moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimmadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa usoo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo jido oo lagu falayo ayaa ku duldhacay sheekhii wuu fekeray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddee la yidhi ilmahaagii baa balaayo ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu yidhi waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahamsanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhi haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale a idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu bal dareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yahay anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay buui anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yahay waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiina markaasuu yaa cam adeerow waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isii aan khumus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanayaa 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey buui 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay iyo makhaayad buu galay wuxuu yahay anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaan wuxuu yahay waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi isla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxi laha baa i caayay aniga adiga nin xun baa tahay adoo kale ma qaado iga deg taxi aniga maxaad iga rabtaa aniga khabiis baa tahay nin xun baa tahay waa isdagaalay waxaan irabi waayo lacagteeda ii celi waa kaa harayaa lacagtii uu ii soo celiyay waan soo qaatay waa soo lugeeyey meeshaan taxiga ka soo raacnay baan nidhi aniga wuxuu xanaaqsan oo isdejinayaan meeshii imid baabuur kale aan soo raacay wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii intuu gadoomay oo uu gubtay 4 nin iyo darawalkii 5tiiba ku dhinteen waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxaa xasuusataa maanta waxbaa sadaqaysanaysa aduu ma ogid
waxaad dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadi musiibo carruurta inaad kaga badbaadi jirro xun inaad kaga badbaadi dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insurance-ga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman gayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa habeenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha way oo faraxsan ayaa albaabka la miskiin kusoo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri wacyi suyiya qof miskiin oo tuugsanaya way wax siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suu yidhi baxdhe cayri saacadaan oo kale yaa albaabada laisku soo garaaca marqaankiibaa ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri aniga orod naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddaa waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo garaacanin barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay dheh nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeedsaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriye wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhacood la ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray